asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada xubinteena la yaabka dunida intaan u gelin haddaad ku cusub tahay warsan media waxaan kaa codsanaynaa inaad saarto subscribe gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaalada xiga mahadsanid tuulo ku taala gobolka Hatay ee koonfurta Turkiga ayaa waxaa ku nool qoys lugaha iyo gacmaha ku socda sida xayawaanka oo kale. qoyskan ayaa markii ugu horeysay saynisyahanada heleen 2005 ilaa hadda waxaa cilmi baarisyo iyo baaritaan ka wada saynisyahanada caalamka sababta keentay inay ku socdaan lugaha iyo gacmaha. qoyskan ayaa ka kooban 5 qof oo walaalo ah halka 3 dumar yihiin labada kalena ay rag yihiin iyadoo da'dooda u dhaxayso 18 jir ilaa 34 jir. arinta kale ee yaabka leh ayaa ah in aabaha iyo hooyada ay caadi yihiin oo ku soconayaan lugahooda. mise ogtahay in bini'aadamku 400 oo milyan oo sano ka hor in ay lugaha iyo gacmaha ku socon jireen, balse waxaa la yaab ku noqotay saynisyahanada baaritaanka waday in ilaa hadda ay jiraan dad lugaha iyo gacmaha ku socda 400 oo milyan oo sano kadib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. taano caafimaad kadib waxaa saynisyahanada iyo dhaqaatiirtu isku khilaafeen sababta keentay in lugaha iyo gacmaha ay ku socdaan 5 qof ee walaalaha ah, iyadoo dhaqtaradu ay ku doodayaan ay tahay dhaawac maskaxda ka soo gaaray 5 qof isla markaana ay iska dhaxleen, halka saynisyahanada ay aaminsan yihiin inay tahay hiddo iyo dhaxal ay ka keeneen 400 oo milyan oo sano ka hor. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد
balse waxaan la iska indhatiri karin in arrintani ay tahay mid mucjiso ah oo mudan in lagu cimri qaato, sababtoo ah labada lugood ee dadka ay ku socdaan waa ay ka fududahay 95% marka lagu socdo lugaha iyo gacmaha. waa nimcooyinka ugu weyn ee ilaahay siiyey bini'aadanka in lugaha oo keliya lagu socdo. haddii aad ka heshay videoga like dheh, sidoo kale haddaad ku cusub tahay Warsan Media, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalkeena xiga. mahadsan.